daawadayaal waxa aynu qaybteenan waraysi kula yeelan doonaa Axmed Cabdi Maxamuud oo ku magac dheer xabsaday gudoomiyihii hore ee aqalka odayaasha ee baarlamaanka gudoomiyahaasi oo aanu ka waraysan doono hawlihii ay qaban jireen iyo waxa uu ka qabo xilka laga wareejiyay ee gudoomiyanimada sida saxaafaduhu iyo idaacadahu waa sheegeen ay leeyihiin xilkiina waa laga wareejiyay marka arrinta iyada waxaad noo sheegi karaysaa فوز ليما قادم حسينا ليما وليتن مع لل بالشاف أفريقيا الوقتي يا يدو قلها أجندي يا والله حظي أن نسكك علوي دوميها لغة بفو تاسونا بروسيتنا معها حبكي وحلو قاعد ترين معها dabeetana rag baa intay gacanta taageen buuqeen oo iska baxeen taas waxba kuma suurtoobayaan xilna lagama wareejin xilkiina sidii baan u hayaa waa sharci haddii muxuu ahaa goluhu isla garto goluhu bilbilmika xidhan yahay bisha afar iyo labaatankeeda golaha la furaya haddii la hayo tiro iyo cod iyo cid wax iga wareejinaysaa maalintaasaa loo fadhiyaa waxaa jirteen idaacadda BBC-da waraysiga kula yeelatan muddo dhowaan aad ku tiri anigu waxaan ku qanacsanahay maadaama beerbeel lagu yimid in haddii uu yimaado dee cod majority aan dee xilka ku wareejinaya hadday taasi jirto marka arrintaa iyada waxa weeye muxuu ahaa beeruhuna dee kuraasta way kala lahaayeen goluhuna wuu qaadi karaa haddii qofku dembi galo waa loo qaadi karaa waa lagu qaadi karaa taasuna waxay keenaysaa two-third majority of the parliament inay muxuu ahaa lagu qaado laakiin layskama odhan karo waa la qaadaya beeluhuna saasay u leeyihiin kuraasta oo markii ugu horreysaba beeshayda oo dhanba ay soo dooratay goluhuna waa askiyey taasuna saasay marka mudane waxaad leedahay waxaan ku joogaa ama sidaad hore u sheegtay in beel ahaan aad wakiil u tahay beel wakiil baan u ahay goluhuna de waa national wax marka beeshu ay qofku uu ku yimaado haddana dee national buu noqonaya wixii sharciga meesha yaal baa qabanaya su-aasheeda labadan doonaya inaan ku weydiiyo adoo ku mahadsan su-aashii hore muddadii 3 sannadood ee barka aad xilka u soo haysay ummadda Somaliland waxaa jirtay dastuurkan Somaliland in doora qabya ahaa waxaad noo sheegi karaysaa waxa sababaha dastuurka loo dhameyn waayo ama dhibaatooyinka hortaagnaa waa runtii labadii sano ee hore axdigu wuxuu tilmaamayaa in baarlamaanku sameeyo haddad axdiga oon akhriyeen oo aragteen baarlamaanku saaraya inuu sameeyo labadii sano hore wuxuu dhammaaday iyadoo oo dhaqaalihii lagu samayn lahaa uu madaxweynuhu soo taagay sanadkii iyo barkii dambena wuxuu u bedelay anaaba samaynaya waxaa dabeetana dhacday markii aanu saa isu qabanay in golihiisii uuna soo dhex galo oo madaxweyne ku-xigeenkii iyo 14 wasiir oo golaha ka mid ah iyo 14 baarlamaanka gartii loo saaray oo ay soo cadeeyeen in baarlamaanku xaq u leeyahay inuu sameeyo intaas markay isku raacday haddana waxaa la geeyey councilkii oo akhtarada in wadag loo gooyo 28 xubnood baa fadhiistay 3 ka mid ah mooyaane 25 kale waxay raaceen go-aankii madaxweyne ku-xigeenka iyo 14 wasiir iyo 14 baarlamaanka ahaa ay soo gaadheen intaa markii la soo gaadhay madaxweynaha haddana diiday markii madaxweynihii diiday haddana guurtii baa soo dhex gashay oo ahayd inay dhex gasho haddii baarlamaanka iyo ay isqabtaan xukuumadda iyaguna go-aankii sidaa ahaa intay iska saareen bay yidhahdeen annakaaba samaynayna haddana nahay guurtii waa odayaashii hadda aan magacooda qori karin yaa yidhi annakaaba samaynayna oo taladii madaxweynaha raacay dastuurkiis sidaasuu u hakaday balse waxaan idiin sheegay dee dastuurkii inuu dhan yahay oo diyaar yahay soo la u baahan yahay
إن لا قرحيو دستور ما هو حوليا وحب هي ما خلت الجيو أجين إن لا قرحيو أجين إن لا سين اسمه كلايو أجين وين كلمة لها يصير يبغى إن بنت واحد مهم الكلام لما بعد ما كان أنتوا يسهرتها أنت اللي هرتها هي وقتها بس الدستور كي واضيع من حوالينهم مد مصنع استقاع ونن سوداني وخبير ويانا كانوا واضيع لما دي الدستور هوية لأنه مدي هوية لما الدستور من نوح وحباسية من نوح وحباسية إن حكم ضدك ولا أبوه ترى تلقيت إن دك ولا أبوه من نوع الحباسية إن حكم نقرأ النقطة حكم نقرأ النقطة في حباسية واحد له ثاني هنا وهوية حكم إنه نقرأ أطهره ومدة تنوي كسر داشي حكم نقرأ كتريو وأنا حق لها وهو حمام كلها سبب بأسين وواحد اللي يرد اللواي وواحد اللي ياش اللواي وواحد ويويك اللواي وواحد ما تقبل هي أربعة من العيلات هذا تحت إنه كسرنا نديو من ضمن إنه وين بابنا حديث أي نقطة إن هذا اللي ولابه نيش من دول سكرين أنا من تنفع إنه حويه حكم نقول يقاطع ما أقولنا يقول مدن أنا سؤال شيء برسيت تباحية واحد دايما هاي واحد مشكلات هرب كتابين ده واحد بينك الخبير كأو من الحوينه وكان صدي يستلم من الحوينه تستوك من قولي ده بدون إنه مصامست كتبون تستوك من خبر دبعت مالي أنا بقول بكرني وحبنا لها جات له بس خبير واحد لوش وقرية خبير واحد لوش وقرية نقول في وانا هنا السودان الدياري لكن هو مستحيل من الحوينه معها تيسي marka waxa dad dhibaatooyinka hor taagan waxa uu sababo madaxweynaha taasana sida awgeed marka dastuurka uu sameyn karo dastuurka ma ana sameeyo noo gameyn way dastuurka waa sameeyay laakiin waxa fikradihii iyo aaraadii wala soo wala la dastuur bayaala ma qura mid madaxweynuhu leeyahay iyo mid golaha iyo khubarada dadka ay sameeyaan saddex loo baa ku jira saddex waxa ku jira muxuu ahaa siyaasi waxa ku jira saddex dhaqaaqan waxa ku jira saddex culamaa diin oo wada loo yeersan iyana marka ma aha wax la iska qalin daraalay sida madaxweynuhu bixiya qalin daraaleen ma waxa weeye maskaxdii ummadda oo shiishay waxa ay doonaysay مدن أدنى محسن هاي سؤال كذا سبحان الله ويديو وحويان مغفرة سنة شباب أبصر بكلمة دام بيرب السومالنا تبي تكون مطيران ها شباب واقف سومية هديت عدل جيدي وقتي أو كله هذا أن كهذي بعد السنة حصل تعالى وحلدوني يا شباب مزيف فيه إنه السماء اسمه أو حقوقي نقول كوريجي دستور كي وحبينا وهنجليو تاس ما كاش بيرتو بسوي ما يدبروا كبروا يا سبل وقت دبلوا نقنع حديث لقي حيدا عبد واحد عيسى إنه مدة لصوهر بضطرني دبعتنا سيدي لوقا من قابل لها سمايو أي نبضي كهري صدق لنا نبضيو دبعتنا ولا شيء مقري بس هذه النقطة ترى تحيد النقطة يسا أنت دونا هكذا كان سريع حرق قصة ما سريع رامي بنو دادنيا دبعتنا أي دورانيا لا ما شغلناش أنت ما سنتين في وقت نسيسي مدن وحوى قاسي أحمد عبدي محمود حافظ ده وعالم الدومية بعلوان الشمال الآن مدة دورنا حلقة وهي الدومية مدران كان أي شيء كان يبدأ الدومية بعلوان الشمال الآن وما سنتين